maxkamadda gobolka mudug qaybteeda galmudug qaybta ciqaabta dambiyada culus ayaa u fariisatay dhageysiga kiiska garmaqalka eedeysanayaal 8 ka kooban kuwaas oo xeraalinta uu ku soo eedeeyay isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaasha qamriga iyo sidoo kale xashiishka eedeysanayaasha oo ay ciidamada booliiska ku soo qabteen howlgal qorsheysan oo laga sameeyay kaalkaxyo 26 bishan ayaa waxaa laga dhageystay xeraalinta taas oo ku saabsaneyd ka ganacsiga iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo qayb weyn ka qaata falalka lidiga ku ah amniga waxaana sidoo kale la horkeenay maxkamadda cadeemo muujinaya eedeysanayaasha inay galeen dambiga sida uu sheegayo ku-xigeenka xeraalyaha guud ee galmudug Cabdi Fataax Sheekh Axmed lidku ah eedeysanayaasha kala ah kuusow بولا آذن عبد الرحمن خليف عرسي عول محمود فارح أسد عبد فارح عاو عبد الديرية مستاح عول سويان نمعو عبد فارح هذا وقص عبسن إن أيدي سنياش بو أيدي سنين قضبضة كلا سدح بقلا فرتن إلا سدح بقلا فرتن يسدح ياطر بقل طبعا إلا غير كعقاب الصوماليات كمان شرفت له سنياشان waxaa lagu soo qabtay ayuu ku jira falal anshaxuma oo ay kamid yihiin iib khamri iyo ayaga oo gacmahooda ku sidoo kale inta ay socotay soo jeedinta xeraalinta waxa ay maxkamadda ka codsatay in lagu xukumo eedeysanayaasha ciqaab adag oo u dhiganta dambigii ay galeen sida uu mar kale sheegayo ku-xigeenka xeraalyaha guud ee galmudug Cabdi Fataax Sheekh Axmed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa maadaama loo soo gudbiyay cadeymo ka kooban marag muujino iyo marxaatiyaal maadaama aanu keenay baari kiiska oo marxaati ah sarkaalkii howlgalka oo asagana marxaati ah oo soo qabtay ayagiyo hawsha ku guda jira maadaama aanu maxkamadda u soo gudbinay qiraalkii ay maxkamadda horteeda ka qirteen oo aan ka qornay oo suuqa laga saaray waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in eedeysanayaashan wixii sharcigu uu ka qabo oo ciqaab ah la marsiiyo maadaama waxyaabaha ay ku guda jireen ay ahaayeen waxyaabo fuxshi ah garsoorka maxkamadda ayaa soo xiray fadhiga isagoo sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto eedeysanayaasha garmaqalka la xiriira halkaas fadhiga loo xiran yahay maxkamadda ayaa go'aan ka soo saari doonta عبد الناصر سعدال بلن راديو